أصحاب تسود هذا بريهن بنون ولا قلنا سنويا حب مهمة وأديك إني أنفعسه أرضي الصومالي أنفعسه dadka wax barto dhan anfacayso ka wax baraasay u taala yuuni yijibin taa u jeedin caaw waxa way buuga ku shiranta waxaan dhan buugaaga ku jirto dokumentiga ku jiro waxaan rabaa inaan ka hadlo sheeko been ah jirtay oo la isku sheegi jiray oo ahayd waxbarashada Soomaaliya yani waxbarashada Soomaaliya marka Soomaaliya joogtid in la dhaleelo waa arki jirnay يعني ما داعي Soomaaliya waxbarashadeeda heerka u sareysay taagantahay laakiin dhaliisha laga sheegi jiro waa been marka soo baxay adduunka ka soo baxay adoo dugsi sare soo dhameysay dugsi hoose la mid tahay adoo jaamacad soo dhameysay waxa la mid tahay dugsi baalka dhexe been way wadamada Yurub ee wadamada caalamka waxbarashada Soomaaliya waa la aqoonsan yahay yani imtixaan meel ba tagtid waa waajib in la galo حتى الصومالي حتى جامعات كلا تحل لقى قاضي ومعقول ما لا قار ولا صوتيا إنساني أديك جرتا لكن قفك حساب برتي إن يدوينا كسعنيسو أنا قاعد رجال ونيلها الله يو واحد يرد ديب الله بطورتا أنا قاعد يوروب حكومة برن ولقي لما إيمان أفريقيا وحكومة برن صومالي ولقي كمان أحبهن صوماليا وحكومة برت maanta nimadaa ninka ugu aqoonta badan ama ugu dadaalka badan ardayda Soomaaliyeed aad mani tahay dad iga dadaal badan iga qatarsan Soomaali ka buuxan arday ay yaabis ajiiba oo badan Soomaali ku jiraan aniga rijaal ahaan iskoolka almazal awada taqaanaan fintum October ku yaalay Roble oo maamulaha ka ahay Prime Minister Roble oo malay doontiin inta taqaano Roble ayaa ka aajiray maamule inuu dhintay inuu nuliya ma aqaan hadduu dhinta Allah ma caristo hadduu nool yahayna caafimaad iyo cimri dheer sidoo kale oo joog jiran Cali Sheekh iyo Muqtaar iyo macallimiin ka ayeen Xuseen iyo saaxiibka Ishaaq Nuur iyo macallin Axmed iyo macallinka xisaabta macallimiin badan dhigi jiray Faysalka English ka dhigi jiray macallin Faysal Muqtaar lacagta meesha Ishaaq qabashada fadhiyay iyo asxaab badan joog jireen marka iskoolka almazal ka soo bilaaway المنزل وطو فرعي بدن سي كلا يشيو المأمور يو العينان يو سكول بدن كفر عمي ألف يو ونور يو حسين يو أصحابتي اللي كلا تكتجي سكول دي مقدش سي واجس أسامي يو أحمد جوري ما شافعي سكول ترسنا جري واحد اللي قاعد لما بكون يو أفرتي لما بكون يو اللحدي يو واتي حالة إسقاط مالتي أديك على كل حال ورنا يقول لما أنا waxbarashadeedii aniga aanu ka dhamaysan iskuulka almazal ka tagay markii muqdisho lagu laabtay kadib dagaaladii oo 2012 13 iskoolkii adalti aan ku dhamaystay waxbarashada ni soo wada oo yani ina Soomaali ka bixin leh hadalka ni shoogaya fahma waxbarashada in aniga Soomaali ka tagin Soomaali wax ku bartay saaxiibkay Abdifataax Gentleman macallinkaygi maamulaheegi saaxiibkay Abdishakuur Caagane أصحاب بدنا مشان أستاذ كيميكي إيو حسن عبد حاشي إيو وحواي معلمين بدنا إسكول كا بالكي أدلتي معلمين كأهاي أستاذ حسين أحمد نور إيو معلمين على اللوبي كده أنت اللوين وحواي وقت جوايا هواي وانيس هرتوا والسلامة لما أنتوا وحاين عيسى أستاذ كأكونتين إيو وروح أقول ماشاس دلا جوجي العدلتي هرت كل مست waxbarashadii kadib jaamacadda Barander ha galay jaamacadda Barander dad badan niyad wuxuu ku isteeno rijaal oo caafimaad ma bartamaya kuliyada maamulka iyo dhaqaalaha markaas la furo hal sano yani hal ard dufcad naga horeysay baad 1 baad 2 aan noqonay asxaab badan oo meesha reer jaamacadda Barander waa ka salaama kuliyadaas oo markaas Ustaad Cabdiraxiin dhinka ka ahay marka reer Barander dhamaantood horta waxa waaye waa wada salaamayo mahad khaliif iyo Ustaad Khayr iyo maam balki ishaga ragta ustaadkii weynaa ishaga dalmar aktarkii jaamacadda ahay jaamacaddii Barander 2015 ilaa 18 saddex sano kuliyadaas lagu dhiganayo wali hadda waa furanta oo si balaarato balkii hawada yani si gashay waxa ku dhiga jirnay
adiga calaa kulli xaal economiga business markaas bangi aan faanisiya ka furnahay saddexdaas kulliyadood qaybood faculty ku kala jirnay asxaabtii kasoo wada baxday warkii aan ugu daalinay kadib ani meeshaas shahaadadeeda ka qaatay oo baajka ah waa kanaan ilaahay wuxuu ii fududeeyey inaan imaado ingiriiska maxaa markaa nii sheegayaa wax kale ma nii sheegaya caddeyntan mar dhowna oo niisoo wadaa laakiin waxaan rabaa jaamacadaha ingiriiska jaamacadaha yurub meel walba aad tagtid fursad waa u haysataa wax waa ka baran kartaa kuliyadday rabta ahaato itixaana laga qaadaa bis itixaan la-aan maarata inaa iska geshid ma gelaysid anigana igama liidatid rijaala ahay aniga maanta nima dhahay ayaa keenay b balasa keenay bani dhahay yani baasitaankayga averagekayga saasay tahay maanta fursad waxa u helay inaa wax barto adinkan waxaa hadda nagu soo gudbinaa waxbarashada soomaaliya liidato ha yeelin yani englishkan inuu liito waa macquul englishka yani sanadka joogay ilaa haddana waa wadaa weli luuqadaasa iska dhisaayo baranayay hadda waxa waaye rijaalow see waayo waa shaqaysanaa yurub ma joogtaa faransiiska jarmalka meeshaa rabta ka joog holland finland wax baro xilli yani xamaali iyo waardiye iyo waxa waaye mustaqbalkaada ma anfacayaan hadda yani waardiyaha iyo xamaaliga iyo keerka iyo waxaas lacaga ka heshaa maano adoo lacagtaada ka helaysa waxna baro walaaley qof yaraa tahay waqti maahan waxbarashada ma laga duqoobo shiikhii jaamacadda alazhar tusaale ha kuu noqdo oo ka noqday madaxda waxbarashadana xilligu iyo da-do ku bilaabo marka adi hadda waxaa kuugu dhiirigelinaha adoo yani dhehaysid waqti walba ma shaqaysid waqtigaa shaqaysamaano waqtiga kale waxbaro fursada haysataa waxa waaye waxbarasho tayalaha haysataa itixaan lagaa qaada haddii xataa wax yar darajadaada hoos lagaaga celiyo dhib ma qabtid waa koorseyne waa socone da ma tihid wax aad da tahay maleh kontonjir ilaah u ahaw da ma tihid waxbaro jaamacadahan fursadayna siinayaan iskuullada fursaday ku siinayaan haddaad waxbaro xataa hoos kasoo bilaabo waxaa jiro ishaag waxbarashooyin oo koorsooyin yaryar oo ku diyaari kartid sanad 2 sano oo aa wax ku qabsan kartid markaa dhudi shaatigaada ku cad xilligaa hore xamaaliga iyo waardiyaha iyo kaarka ku gudub ma diidanin laakiin waqtiga aad tiktok ku bixinaysid waqtiga aad social media ku bixinaysid wax ku baro social media laftigiisa faa'iido leeyahay waxbarashada laftigeeda qayb oo ka qaadan karaa ma ahan meel ilaa wax ku baro fursada haysataa aniga hadda waxa kalmanii la wadaagay adinkan waa nii duceynaa inta fursada haysato ilaaha usii siyaadiyo ka faa'iidaysta inta ay haysana ilaaha u fududeeyo anigana iisoo duceeyay saaxiibayatiin beejkan inta igu xiran rijaal inta ifiirsa doonto oo soomaaliyeed waxbarasho adiga ku anfici mustaqbalkaada anfici caruurtaada anfici dadkaada anfici dalkaada anfici wadamada caalamka hormaray intaa waxbarashadana ka qaadano oo wadankana kula laabano waxbarashadii dalkana ma liidato been waaye waxbarashada aa liidato waxbarashadeena waa been waaye luuqadda uma dhalan waa macquul luuqadda inaa ku liidano laakiin dadka inta joogo dad ka aqoon badan ka maskax badan ayaa xagga joogo annakaan maanta fursadaha helna dad naga fursado wax barasho fiican aa jiro xaafidu quraan qofka hadduu yahan wax waayaba wayba kasii fududahayba waxbarashadii o dhan waxay u tahay kaalay tumitano 1 iyo 2 dhagdhag horoo ka kala tuura war ayaan iigu daalinin koorsooyinka yarar sameeya kombyuutarka haddii aaleed haddii geedka aale yani fursado badan aa yaallo dadaal aniga maantay fursada helay alxamdulilah adigana fursada waa heli kartaa inta yurub joogto waa haysataa inta america joogto waa haysataa dadaala qofkii aa yani dhehayso rijaalow sharci mahaysani ama yani weli sharci mehelin taas ma sheegi kara aniga oo yani sharci lagugu xiro waxbarashadii in sharcigaas lagaaga xiro laakiin qofkii sharci haysato meel walba u furan soo dhawaadaan leeyahay waqtigu neega tegin wax barta ana iisoo duceeya insha allahu rijaalow ciyaaraha ma jooji doontaa ma jooji doono ciyaarahan waa 5 daqiiqo 6 daqiiqo kaftano waqti wada qaadano marka inaan kaftano ciyaarihii isfaaleeno taageero aan nahnay ma diidan laakiin inta ma ahan ishaag 7 beri aad subax inta aadid galabtii ka imaw subax inta aadid 6 saac ka imaw maahan waqti yar oo kooban waay waxbarashada waqtigaas yar oo kooban ka faa'iideysanay soo dhawaadan leeyahay adda ka faa'iideyso walaalow anna waa insha Allah waa ka faa'iideyso doonaa waxbarashadeena dalkeenana jaamacadaha dhan oo dalkeena jaamacad hebel waa liidataa saan waaye
adi haddii lagu gudbiyey qofkaa wax baran haddii iyada horta u taalla qof siira horta qof qaadi karta male laakiin qofka wax yar xataa isku toosi karto wax uun soo bartay wax uun soo faa'iiday dalkii markuu joogay wuu soconaa imtixaan yara lagaa qaadaa haddaa ebertaa waa dhace haddaa wax taqaanidna hore u soconay qof dabiina ma jiree dadaal xumaa jirto qof dabiina ma jiree dadaal xumaa jirto aniga caawa iyo maantay ramadaan kariim fursadaasaa nii hayaa ka faa'iidaysta qof walba videogan soo gaaro yurub haddaa joogto hurdada ka kac haddaa yacni joogtid ishaag america hurdada ka kac war africa xataa waxbarasho laga heli karaa shahaadadeenna way socotaa jaamacadda baraandir ardada hadda dhigato jaamacadaha kale lamid way laakiin ani jaamacaddeeda way jaamacadda ummaddaa jirto jaamacadda waxa jirto adiga waxaa lagaa rabaa saxiix dowladda taqsiidinta oo dowladda wasaaradda waxbarashada inaad ka haysatid bis soomaaliya ha noolaato waxbarashadeenna iyo jaamacadeenna iyo shahaadooyinkeena waa la aqoonsanyahay ma la aqoonsano qofa ha ka yeelin ma la aqoonsanaysaan waalidoon qof ha ka yeelin dowladda meel walbay waxbarashadeeda gaartay aniga jaamacaddeeda baraandir ardada dhigata waxaan leeyahay waddan aan jaamacadda iyo shahaadadeeda laga aqoonsana ma jiro waa ku faanaa ina maantay waana ugu mahad celinaa jaamacadda baraandir iyo asxaabta kasoo baxday jaamacadaha kalena soomaaliya dhammaantoodna waa ku faanaa qof walba oo kasoo baxdayna waxaan leeyahay jaamacaddaada waxba ha liidin meel walba wax uga baran kartaa shahaadadeeda aday kugu xirantahay dadaalkaada iyo waxa la timaado